السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو سو نقد وعن ميل walbo aad naga daawanaysaan iyo si walbo aad noo daawanaysaan channelka waa Macalin Muuse official channel. aniguna waa Macalin Muuse. dadkii hore inooga xirnaa waxaan leeyahay mar kale waa idin soo dhaweynayaa. dadka naga cusubna waxaan leeyahay ku soo dhawaada channelka Macalin Muuse ee YouTube-ka. haddii aad igu aragtay in aan TikTok-ga oo kaliya in badan aad igu aragtay, maanta haddana waxaad igu arkaysaa aniga oo kasoo muuqanaya barteeda YouTube-ka channelkayga ee Macalin Muuse. waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad subscribe noo saarto YouTube-keena channelkiisa, sidoo kale gambaleelka aad furtaa si uu ku soo gaaro muuqaalada aan soo dhigayno maalin ama maalinta ka dambeyso. maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago tafsiirka masaajida marka lagu riyoodo iyo mixraabka iyo manaaradaha. in badan dad badan ayaa waxay i weydiiyeen oo ay ila wadaageen anigoo masaajid ku cibaadeysanayna ku riyoonay, anagoo dukanayna ku riyoonay, anagoo cibaadad masaajidka dhexdiisa ku jirnaa ku riyoonay. maanta waxaad baranaysaa masaajidka macnihiisa waxa uu yahay. masaajidka marka riyo lagu arko macnihiisa waxa uu taagan yahay. masaajid macnihiisu waxa waaye marka ugu horeyso waa qof caalim ah waaye. masaajidka waxa loo tagaa cibaado. masaajidka waxa loo tagaa salaad iyo quraan aqris. saas daraadeeda masaajidka macnihiisa saxda ah waxa waaye waa qof oo caabid ah, zaahid ah, caalim ah, dadkuna ay u doontaan cilmi iyo aqoon xaggiisa ay u doontaan. maadaama masaajidka loo doonto cibaado iyo alla caabud, ayaa qofkan wuxuu u taagan yahay masaajidka marka riyada la joogo qof caalim ah, caabid ah, zaahid ah, dadkuna ay xaggiisa ay u doontaan cilmi koroosi ay u doontaan. masaajidka macnihiisa saas waaye. yudkaru ilaahay wuxuu yiri subxaanahu wa ta'aala yudkaru fiiha, masaajida dhexdeeda waxaa lagu sheegaa ismullah, ilaahay magaciisa kathiran in badan. haddii qofka masaajidkii oo dumay haddii uu ku riyoodo ka waran. masaajidkii oo dumay haddii aad ku riyooto, xaafadaas masaajidka uu ka dumay haddii ay tahay xaafadaada iyo xaafad kaleba, caalimkeedaa dhimanayo, shiikheedaa dhimanayo. macnaheedu waxaa waaye dumista masaajidka in shiikh ka mid ah mashaayikhda culummada mid ka mid ah inuu dhimanayo waaye. masaajid dhismihiisa uu socdo oo cusub oo la dhisayana ka waran. masaajidka dhismihiisa oo socdo ee la dhisaya waxa waaye qofkaasi isaga ah inuu xiriirinayo qaraabadiisa. qofka riyada arkay waaye, wuxuu xiriirinayaa qaraabadiisa, wuxuu kale dadkana uu ku ururinaya oo isugu geenaya meel kheer iyo barako iyo duco ay ka buuxdo ayuu isugu geenayaa. saas daraadeeda dhismaha masaajidka waxa weeyaan in qofka muslimiinta inay usoo hoyanayso guul, gaaladuna ay ka guuleysanayaan. haddii aad ku riyooto masaajid dhismihiisa u socdo, waa guul usoo hoyanayso dadka muslimiinta ah, oo mataqaanaa markaasina ay guuleysanayaan, dadka muslimiinta ay guuleysanayaan, lagana guuleysanayo gaalada. qaala aladiina galabuu calaa amrihim lanattakhidanna calayhim masjidan. soo maahan kuwii adkaaday ee hadalka ku adkaaday ee ku qaalib noqday maxay yidhaahdeen? masaajid ayaynu ka yeelanaynaa way macnaheeda. haddii qofka uu ku riyoodo isaga oo masaajidka ku dukanayo xaafadiisa, qofkan tujinayo imaamkaana uu yahay qof majhuul ah, aan la garanaynin haddii uu yahay, macnaheedu oo ninka markaasi imaamkana uu xanuunsan yahay, filyaqda caadiyan uu xanuunsan yahay, allah u naxariisto, wuu u dhimanayaa. yaa dhimanayo? imaamka masaajidkaa dhimanayo. sababtoo ah qof majhuul ah aan la aqoonina salaada dadka ka bixinayo soo maahan, imaamkana uu xanuunsan yahay, allah u naxariisto, imaamka uu dhimanaya waa macnaheedu. haddii qofka uu ku riyoodo masaajidkii oo isku bedelay xamaam, musqul, masaajidkii ilaahay yaa musqul noqday ama suuli noqday, macnaheedu waa maxay? macnaheedu waxa waaye qof ilaahay ceebtiisa uu asturi jiray ayaa ceebtiisa banaanka keensanayo oo la imaanayo. isagaa banaanka ceebtiisa la imaanayo oo isceebeenaya. macnaha haddii guriga adiga aad degantahay shakhsiyan masaajid uu isku bedelo, gurigaaga ee adiga aad degantahay haddii uu masaajid isku bedelo, macnaheedu waa maxay? macnaheedu waxa weeyaan gurigaaga inuu yahay guri kheer iyo barako ee ka buuxdo waaye. dadkana aad ugu yeerto kheerka iyo barakada. masaajida waxaa la isugu yeero waa falaax, xaya cala asalaax, xaya cala alfalaax. gurigaaga oo masaajid noqdayna waa inaad kheerka dadka aad ugu yeerayso waay macnaheeda. hadda ka hore waxaa la yidhi nin baa riyooday, nin reer miyi ah ayaa riyooday. inta aanu riyoonin laakiin wuxuu samaystay la yiri masaajid yar ama mawlac yar oo gurigiisa ka dhex samaystay.
masaajid yar iyo moolac yar markii gurigiisa uu ka dhex samaystay wuu xanuunsaday ninkii. intaan xanuunsanin ka hor wuxuu samaystaa la yidhaahdaa ninkaasi 7 dhagaxood. 7 dhagaxa ayuu mar walba oo salaada uu dukado oo uu salaamo naqsado wuxuu dhihi jiray dhagaxaanay maqla, waxaan idin markhaati gelinayaa inaanu jirin alle xaq lagu caabudo ilaahay mooyaane subxaanahu wa tacaala, intaas ila ogaado ii qarsanaadu dhihi jiray. ninkii wuu xanuunsaday. markuu xanuunsaday ayuu riyo wuxuu ku arkay isaga oo dhintay oo aakhiro la geeyey, ahlu naaraa tahay la dhahay. naarta markii loo sii wadayne dhagaxaantii 7 mid ka mid ahaa is hortaagay oo u qiri oo yidhi waxaan qirayaa ninkani inuu ilaahay keligiis caabudi jiray. markaasuu sidaasi 7 dhagaxa 7 naar ayay ka badbaadiyeen. sidaas ayuuna kaga badbaadiyay naarta oo jannada lagu geeyay oo ahlu janno uu ku noqday. waxaa kuu soo haray mixraabka. mixraab waxaa la yidhaahdaa meesha imaamka uu dadka uu kaga bixiyo salaada, ama meesha khatiibka uu istaago oo mimbarka iyo eridaasa waxaa laisku yidhahdaa mixraab baa laisku yidhahdaa. qofka isagoo taagan mixraab haddii uu ku riyado bishaaro waaye. nebi zakariya calayhi salaam markay bishaarada u imaanaysay isagoo mixraabka taagan ayay u timid. fanaadatu lmalaa'ikatu wa huwa qaa'imun yusallii fi lmixraabi ana allaha yubashiruka biyaxya. yaxya bishaaradiisa goormay u timid? isagoo taagan mixraabka, isagoo taaganay u timid. falidaalika marka nebi zakariya calayhi salaam waxay u timid bishaarada isagoo mixraabka. mixraabka marka waa bishaaro waaye, bishaaro waaye. haddii gabar ay tahay qofka ku riyoonayana wiil ayay dhalaysaa, sidaasay leeyihin wallahu aclam. haddii qofka isaga oo waqti aan waqtigeeda ahayn ku dukanaya mixraabka uu ku riyoodane, faa'iidada waxay usoo noqonaysaa awlaadiisa, caruurtiisa ayay usoo noqonaysaa. salaad ayaa waxaad ku dukatay mixraabka, waqtigeedana lama joogo salaadaas iyada ah. macnaheedu maxaa waaye adiga maahane ilmahaaga iskale faa'iidada iyo bishaarada ay tilmaamaysa riyadan iyada ah. haddii qofka uu ku riyooday isaga oo ku kaashaayo mixraabka, kaadida macnaheedu waxa weeyaanay leeyihiin markaasi waxaa u dhalanayay leeyihiin wiil caalim ah, kariim ah, oo cilmigiisu aad adduunka dhan ugu baahi doona u dhalanayay leeyihiin. waxaa la sheegay hadda ka hor inuu ku riyooday isagoo ku kaashaayo mixraabka, wuu yaabay, wuu naxay. masaajidka ilaahay mixraabka isagoo ku kaashaayo, qof mucabira oo riyooyinka fasir u tegay. markaasaa waxaa lagu yidhi yuuladu laka ghulaam, wiil ayaa kuu dhalanayo, yasiiru imaaman yuqtadaa bihi, wuxuuna noqon doonaa imaam ama hogaamiye lagu dayduu noqon doonaa ayaa la yidhi. manaarada masaajidka ka taagan macnaheedu waxay u taagan tahay nin dadka khayrka ugu yeedhaayo. manaarada maxaa ku xiran? manaarada waxaa ku xiran mikrofoono. mikrofoonadaas dadka waxaa loogu yeedhaa xaya cala asalaa, xaya cala alfilaax, war salaada u kaaleya, salaada uu imaadaa dadka la dhahaa, soo maa? idan waxaa lagu turjumayaa manaarada inuu yahay nin dadka xaqa ugu yeedhaayo ayaa lagu tilmaamaa. haddii ay burburto manaarada, ninkaas isagaa dadka khayrka ugu yeedhaayo geeridiisa waaye. idan marka haddii qofka isagoo manaarad dheer kasoo dhacaya oo ku riyoodane, macnaheedu maxaa waaye in qofkaasi isaga ah mansabkii ama mas-uuliyaddii markaasi uu u hayay dadka in laga xayuubinayo, xataa haddii uu xas qabi xitaa xaaskiisa ama way ka dhimanayaan ama way kala tegayaan. waxaa la sheegaa nin muhandasa ama injineer ayaa hadda kahor wuxuu ku riyooday isagoo manaaro weyn fuulay oo ka samaysan khashab ama alwaax ka samaysan. waxaa loogu macneeyey riyadaasi oo loogu fasiray oo la yidhi in aad heli doonto wilaayo ama saltano. wayna u dhacday, wayna u rumowday. markii dambena waxaa la sheegaa ninkaas isagaa inuu magaalo la yihahdo balakh oo ciraaq ku taalo inuu madax ka noqdo markii dambe. wadaad kaloo isagana ciraaqi ahaa ayaa waxaa la sheegaa waxaa lagu lahaa deyn fara badana lagu lahaa. marka habeenaha ka mid ah ayuu wuxuu ku riyooday isagoo aada u murugaysan uu seexday. habeenkii wuxuu ku riyooday aabihiis oo dhintay oo tasbiixsanayo oo tahliilsanayo oo u yeerayo, wiilkeygiiu kaalay dhahayo. markii uu u tegayna hurdadii uu ka balaarigo, wuu ka toosay. mucabir ayuu u tegay oo u fasira riyada. markaasa waxaa lagu yidhi aabbaha darajo sare ayuu, meel sare ayuu joogaa aa layidhi, bishaareyso. markaasuu yidhi aabahee wuu dhintay. markaasa waxaa lagu yidhi adiga soo wiilkiisa soomatiisoo kuma usan dhalin, ha aday kuu furmaysaa oo adaa darajo sare gaaraya adduunyada inta aad joogtid. tasbiixdan iyo dikrigan uu xusaayana waxaa waay inuu ilaahay kaa feedaayo, murugada ku hayso inuu ilaahay kaa feedaayo. maalmo kadib, muddo kadib, wax yar kadib, ninkii nin baaba u yimid oo raadinayo adiga miya aa layidhi hebel, haa
gabadhii heblaay ahayd ayaa sakaraad ah, waxay rabtaa inay kula dardaaranto, ay ku dardaaranto maalkeeda barobar. ninkii israaceen, gabadhii dhimar wataa loo tegay, gabadhii waxay u dardaarantay maalkeeda 3 meelood 2 duleel waxay u dardaarantay oo ay siisay ninkan isaga ah. 3 meelood 2 meelna waxay u dardaarantay oo ay tiri halagu bixiyo duugmada iyo sadaqada iyo halagu bixiyo dhahday. ninkii deentiina sidaas ay kaga baxday, sidaasuna maal uu ku helay. isku soo wada duuduub oo masaajidka iyo manaarada iyo mixraabka waxay ka turjumayaan inta badan khayr iyo bashaaro. haddii aad ku riyooto adigan idaawanayo, adigoo masaajidka ku cibaadaysanayo, adigoo masaajidka adimayo, adigoo masaajid imaamka, intaba waxaad ogaataa inaad tahay qof khayraysan oo bishaaraysan. waxaan rajaynayaa inaad ka wada faa'iidaysateen insha allahu tacaala. muuqaalka xiga intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.